iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay ku sugnaayeen guddiga ugu sarreeya komishinka doorashooyinka Soomaaliland isla markaana ay ka wadeen howlo la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxaa maanta ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Sool kuwaas oo cabashooyin ka muujiyay hanaan socodka shaqooyinka ay ka wadaan guddiga komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland ee magaalada Laascaanood. annagoo ah dhalinyarada aqoon-yahanada gobolka Sool kuna hadlaysa afka Maxamuud Garaad waxaanu cambaarayn iyo dhaliil u soo jeedinaynaa komishinka sare ee qaranka Soomaaliland. waxaanu halkan ka cadaynaynaa komishinka hawshii loo soo xilsaartay bataatanba inuusan wadan musuqmaasuq iyo shaqo aan loo baahnayn iyo kala faquuq inuu ka bilaabay gobolka Sool. haddaanu nahay dhalinyaradii iyo indheergaradkii iyo ubixii gobolkana raalli ka ahaan mayno kana noqon mayno waxaan uu ka shaqaynayo komishinka qaranka. komishinka qaranka waynu wada garanaynaa waa kuwii mucaarad ku ahaa lidka ku ah ka soo horjeeday inay doorashadu dhacdo. maantana waxay diyaar u yihiinoo ay ka shaqaynayaan sidii kaadhadhka diiwaangelinta looga joojin lahaa gobollada bari gaar ahaan gobolka Sool siiba degmooyinka Maxamuud Garaad. annagu haddaanu nahay beesha Maxamuud Garaad raalli kama nihin sida ay wax u qoondaynayaan iyo sida ay shaqada u qorayaan iyo sida ay wax u qorsheeyeen komishinka qaranka. waxaanu doonaynaa qoondada iyo heshiiskan hoose ay soo galeen iyagaa oge inay wax ka bedelaan. raallina kama yihin kana dulqaadan mayno. haddii ay hawsha ay wadaan ay sidan u sii socotana sheekadu af way dhaafaysaa, gacan bay tegaysaa. haddii gacan diyaar loo yahay diyaar ha loo noqdo, haddii kalena jamhuuriyadda Soomaaliland waa inay tallaabo sharciya ka qaadaa. waxaan aanan raalliga ka ahayn bulshadayada iyo dadka iyagana aan u cuntamin haddii cod iyo doorasho la doonayo weeye. waa Xuseen Salaad Ismaaciil. waxaanu halkan isugu nimi dhalinyaro ka kooban aqoon-yahano waxgarad ardaydii jaamacadda ee Maxamuud Bari. dhalinyaradan oo ah dhalinyaradii ka soo jeeday gobollada Xaysimo, Sool, Xudun, Yeyle, Shululux, Yagoori. waxaanu cambaaraynaynaa komishinka qaranka. waxaanu leenahay komishinka qaranku kama uu soo bixin shaqadii uu lahaa. komishinka qaranku waxa uu la yimi gobolka si qarsoodiyana wuu ku yimi, si qarsoodiyana wuu ku baxa. hal jaamacad keliya ayaa laga qaadanayaa ayuu yidhi ardaydii ka shaqayn lahayd shaqadan komishinku ee loo idmaday. dhammaan dadkan meesha wada taagan ama dhallinyaradani anigoo ku hadlaya afkoodii, dhallinyaradani waxa ay ka shaqaynaysay shaqadii hore ee komishinka. haddeerna waa loo diiday shaqadii ay lahaayeen. waxaana looga gol leeyahay in kaadhadhkii deegaanadaas aan hore u soo sheegay in aysan u gaadhin sidii loogu talagalay oo halkaas musuqmaasuq u ka dhaco. kana oggolaan mayno dadkan loogu soo qoray deegaanada haddaanu nahay dhallinyaradii ka soo jeeday deegaanada. waxaannu leenahay komishinka dib ha ugu noqdeen shaqaalaha ay ka soo qoranayaan jaamacadaha ama jaamacad keliya noomana cuntanto. waxaan mar saddexaad iyo mar labaad ku celinayaa anigoo ah dhalinyarada gobolka Sool in ay dib u fiiriyaan komishinka doorashooyinka qaranku arrintan ay ula yimaadeen dhalinyarada. billahi tawfiiq. oo dhaleecaynaya komishinka qaranka Soomaaliland. halkan waxaan isku nimi haddaanu nahay dhalinyarada inaanu heli weynay ama komishinka qaranka u sheegno saamigaan komishinka ku lahayn inaanu weynay. markii ay dhacaysay codbixin isdiiwaangelintu saamigii maanu helin. waxaan u sheegaynaa komishinka qaranka Soomaaliland maamulkiisa sare iyo kiisa hoose ee gobolka Sool ku sugan degmooyinka Xudun, Taleex, Yagoori, Adha Cadeeye. degmo kasta waxay haysataa cod 3,000 cod gaadhaya. wax kaadhadha oo degmooyinka laga bixinayo haba yaraatee ma jiro, diyaarna uma nihin.
waxaan u sheegaynaa komishinka qaranka Soomaaliland maamulka sare kiisa hoosaba haddaan dhahay dhalinyaro wax gaari oo ka baxaya u baxaya intaas degmo aan sheegay ma jiro waxaan kale u sheegayaa maamulka sare komishinka Soomaaliland uga dulqaadan mayno waan dhaleecaynaa waxaan amar ku bixinana anagoo ah dhalinyarada Maxamuud Garaad inay dib ugu noqdaan nooma cuntabin halkan waxaan ka dhalacaynayaa komishinka doorashada Soomaaliland ee u qaabilsan gobolka Sool waxaan halkan ku aragnaa oo aad ka muuqata taadiga lagu hayo dhalinyarada aqoon-yahamiinta ee gobolka Sool taasoo ay komishinka doorashooyinka Soomaaliland ku sameeyaan khalkhal waxaan leenahay haddaan nahay dhalinyarada Maxamuud Garaad waxaan leenahay komishinka Soomaaliland ay ka wado gobolka Sool inuusan ma cuntamin taasoo ah in dib loogu noqdo lagana fiirsado sida wax loo wado iyo dastuurka ama Ali Axmed Caliye waxa halka ka cambaaraynaya komishinka qaranka waxyaabo ka wada gobolka Sool wax cuntada ma dib ha loogu noqdo wada dhalinyartii odayaashii wixii oo dhow ka soo jeedaan dadka la soo qoray ee jaamacadda Nugaal soo qortay dadka yaa la haligin in la haliga dadka ma marka dadka yaa la haligin baan leenahay dadka yaa la haligin dib ha loogu noqdo waxaanu haynaa tiradan 30,000 oo cod baanu haynaa waxa la doonayaa in la hagaajiyo nidaamada habka hadda wax lagu wadana waxba ka suurtoobinayaan sida ay dhalinyaradu sheegtay waa ku taageersanayaan Rahmaan Rahiim dhalinyarada codka ay soo jeesay aad iyo aad baan horta ugu taageersanaa waa qodobka labaad waxaan suuroobeen horta in lagu hadlo ma waxa ma garata 30 cod oo la idin sheegay waxay ka suurtagal ah horta la qaadan karaa anagu waxaanu diidanahay wax baabuura oo u baxaya oo xagga ka soo jeeda ma jiro waa total ninkii u saarana isaga qaba